15 ماي إن مدحونها أنا بدلها أما أنا قاعد يديب لي دورنا دور شد مدحونها 15 ماي إن دعوان ربع إن واحد القدر مرة madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ku dhawaaqay in termkiisa saddexaad uu u sharaxan yahay xilka madaxtinimada Soomaaliya isagoona sheegay in uu diyaar u yahay inuu dhameystiro waxyaabaha u dhiman madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dastuurka uusan ka hor istaagin in mar kale uu tartamo xilka madaxweynaha maadaama uu ku dooday in la doortay laba jeer aan isku xigin waxa uu sheegay in labadaas jeer ay kala duwanaayeen isla markaana taasi ay u fududeynayso in markale isku soo taagay xilka madaxtinimada ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareysi siinayay TV-ga Al Jazeera ayuuna arintaas ku xaqiijiyay madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bilo kooban ay ka arsan yihiin ayaa haatan wuxuu ka howlan yahay wax ka bedelka dastuurka arinta oo si degdeg ugu soo horjeedaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland xubnaha ayaan u arkaa qorshaha wax ka bedelka dastuurka mid uu madaxweynaha ugu dan leeyahay damac muddo kororsi taasi oo si adag ay ugu horyimaadeen guddoonka baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale ku howlan dhameystirka wax ka bedelka dastuurka iyadoona tilaabooyinkaas lagu tilmaamay kuwa aan soconeynin